السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتeyda qaaliga ku xidhan channelka Handmade with Asma kusoo dhawaada video cusub maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allahu tacaala ama aan idin tusi doona qaab yar oo fudud oo u sameyn kartaan background oo kale uu ku fadhiisan karo shumaca sida ujeedaanba wuxuu sameysan yahay qaabka ubaxa wuxuuna ka kooban yahay laba qaybood qaybtan sare shamaca haysa iyo qaybtan dambe uu ku fadhiisanayo ama backgroundkan yar ballaaran ee ubaxa u eg sidaasaan u ekaanaya insha Allahu tacaala aan guda galno aan idin tuso sida loo sameynayo waxaan ku shaqeynaynaa duntan iyo irbadan waxaan ku bilaabeynaa goobadii magicalka ahayd ama goobadii musixirka ahayd kadib waxaan ku shaqeynaynaa goobada gudaheeda tiro mucayan ah kolba adigu dee fadhiisinka aad doonaysid inay ekaato shaqadaadu marka anigu waxaan ku bilaabaya insha Allahu tacaala ilaa iyo 9 half tier baan ku sameynayaa half tiirka markaad halkaas soo wareejisid kii koobaad waa inaga sameynay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 markaan sameyno waxaan sameynaynaa si aan goobada u xidhno dacalkan aan soo jiidaynaa yar kadibna way isku soo ururaysa goobadu sida ujeedaanba markay isku soo ururto waxaad sameynaysaa waxaad ku xidhaysaa half tiirkii ugu horeeyay aad sameysay oo kan ah waxaan ku xidhaynaa gursada ama tuliinka siibta markaa saas oo kale way noo xidhmatay haddaad doonaysid inaanay ka yacni duleelkaasi aanu kaa ballaarsamin waxaad sameynaysaa halkan waad ka gunti kartaa xogaa waxaan sameynaynaa kor baan waxaan u kacaynaa 1 2 markaa waxaan ku shaqeynaynaa stitch walba imika 9 baan u shaqeynay gursad walba waxaan ku shaqeynaynaa 2 ama waxaan sameynaynaa 2 jibaarintii anagoo mid kastaba waxaan ku dul sameynaynaa 2 tiirkii halka wareeg lahaa marka tiirka halka wareeg leh 2 stitch ayaan kor u kacaynaa oo isjoogiisii ah yacni wuxuu ka dhigan yahay tiirkii koobaad labada wareeg leh halka wareeg leh cafwan hal tiir oo hal wareeg leh baan ku shaqeynaynaa marka labadan aan kor u kacnay kii koobaad u xisaabsan yihiin hal mar baan kusoo wareejinaynaa isla meesha aan labadan ka kacnay baan gelaynaa xadhigan soo jiidaynaa ama dunta waan kasoo dhex baxaynaa kadib duntan soo laabaynaa laban ka saaraynaa duntan haddana soo laabaynaa laba kalan ka saaraynaa sidaa waxaanu sameynay labadii tiir wareeg halka wareeg lahaa ee ugu horeeyay tani waxay ahayd joogii waxaan kasoo qaadnay inay hal tiir tahay kana hadda aanu sameynay marka waxaan gelaynaa silsilada ama stitchka ku xigtaan gelaynaa anagoo ku sameynaynaa 2 tiirka halka wareeg leh waxaan sameynaynaa waan gelaynaa hal mar 2 kii labaad baan sameynaynaa isla meeshii baan ku sameynaynaa in markastaba labada yani waxa weeyaan waxaan sameynaynaa tazaayud ama 2 jibaarintii aan idiin sheegay tii saddexaad baan gelaynaa iyadana 2 mid baan ku sameynaynaa tazaayudka waxaan uga dan leenahay inay goobadu ballaarna siiso noo noqdo fadhigii ugu fadhiisanayay shumacu waxaan soo gaarnay xabadii u dambeysay waxaan sameynaynaa 1 2 marka waxaan sameynaynaa hadda imka goobadan xidhaynaa waxaan ku xidhaynaa stitchkii u horeysay ama silsiladii u horeysay aan sameynay tiirka istaagiisa ayaan ku xidhnay sidaa markaa goobadii baa noo sameysmatay marka waad qiyaasaysaa haddii uu fadhiga for example oo kale
shamcaagu qaadayo markaasaad eegeysaa. Marka aniga shamcaagu waa fit, waa halkii aan u baahnaa buu ku taagan yahay. Marka wax saf oo kale kuma daray. Laakiin adiga haddii uu shamcaagu ka ballaaran yahay, waxaad sameynaysaa waad kusii daraysaa dabcan. Waxaan sameynaynaa hal stitch ayaan kor u kacayaa. Kadib silsiladaha xagga sare ku sameysmay ee labada dacal ka kooban ayaan halka hoose ka gelayaa. Mid kastaba waxaan ku sameynayaa hal xabo oo gursad buuxbuuxin ah. Markaa safka dhan saasaan u dhamaystiraynaa annagoo silsilada halkeeda hoose gelayna hal gursad oo buuxbuuxin ahna ku sameynaynaa si ay noogu sameysmato taagaas oo kale noogu sameysmo. Markaa safkaan dhameynaa kadibna waan diisoo noqonayaa. Markaan dhameynay safkii waxaan sameynaynaa sidii aan idin tusay, goobada waan isku xidhaynaa annagoo ku xidhaynaa tiirkii u dambeeyay aan sameynay stitchkiisa u sarreeya ku xidhaynaa. Marka sidaas oo kale kuu noqonaysaa. Kadib waxaad sameynaysaa, waxaad kor u kacaysaa hal stitch, hal marna waad kusoo wareegaysaa. Waxaad gelaysaa labada silsiladood ee idiin muuqda, taas iyo taas qaybta u dhaxaysa ayaan waxaan ka gelaynaa halkaa hoose, haddana dhinaca kale ayaan ka soo baxaynaa. Duntaad marka hore kusoo laabaysaa, kadib waxaad gelaysaa stitchka u horeeya halkiisa hoose, kan kalena halkan horaad ka soo baxaysaa. Kadib waxaan soo jiidaynaa xadhiga. Kadib waxaan sameynaynaa gursada la dhaho tiirka halka wareeg leh. Marka waxaa la dhahaa qaabkan waxaa la dhahaa tiirka halka wareeg leh ee xagga hore soo maraya. Marka haddana mar kale ayaad qaadaysaa silsiladaas aad arkaysid iyo silsiladaas ayaad halkaasaad ka gelaysaa. Labada dacal ee silsilada halkooda hoosaad gelaysaa. Qaybtaa dhexe ee u dhaxaysa ayaad ka boodaysaa, waxaad kasoo dhex baxaysaa silsilada kale halkeeda hoose ayaad kasoo dhex baxaysaa. Kadib waad soo jiidaysaa. Haddana soo laabaysaa, halkii baad gelaysaa, halkan waad ka soo baxaysaa. Waxaad soo jiidaysaa xadhiga, labadaba waad ka soo dhex baxaysaa. Saasaad ku wadaysaa. Waxaan soo gaarnay stitchkii u dambeysay. Markaad sameysid waxaad sameynaysaa in kaliyaata waad xidhaysaa safka, jaraysaa xadhiga. Xadhigana sidii aan idiin sheegay waxun baad sameynaysaa in yani waxaad ku dhex qarinaysaa shaqadaada. Markaan geliyay saad u jeedaan buu noqday. Aad buu munaasib u yahay, yani ma haysto kuma dhegana. Halkana spacekiisu waa caadi. Marka sidan oo kale runtii qurux badan haddaad u daysid. Haddaad doonaysidna ubaxyadan ku sameynaynaa. Marka aan idin tuso ubaxyada sida loo sameynayo. Ubaxyada waxaan ku shaqeynaynaa leadkan u hooseeya ee fadhiga u ah wareega. Haddii aan bilowno sameynta ubaxa, waxaad sameynaysaa marka ugu horeysa waxaad gelaysaa silsiladaada. Silsiladii aad doontid baad ka bilaabaysaa. Xadhiga haddaad doonaysid waad bedeli kartaa oo waad ka dhigi kartaa laba xadhig sida tan oo kale. Laakiin kan baan ku wadaynaa hadda. Waxaad sameynaysaa caadi, waxaad soo jiidaysaa labada silsiladood ayaad halka hoose intaad ka geshid baad dunta soo jiidanaysaa. Waxaad sameynaysaa markaa waxaad kor u kacaysaa 1, 2, 3, 4, 5. Isla meeshii aad ka kacday baad gelaysaa. Kadib waxaad soo jiidaysaa dunta. Waxaad ku xidhaysaa gursada siibata. Goobadaas markaa kuu sameysmaysa yar aad arkaysid ee dhexda ka daloosha. Marka waxaan sameynaynaa haddana waxaan ku xigtaan gelaynaa silsilada ku xigta. Xadhigii dhamaadka ama xadhigii dacalka kale ee aan soo jiidnay markii u horeysay waan sii qaadanaynaa. Yani shaqadan hoosta ka marinaynaa. Kadib waxaad sameynaysaa gursadan waxaad ku shaqeynaysaa. Waxaan ku shaqeynaynaa buuxbuuxin, xabad buuxbuuxina 1. Ta ku xigtaan gelaynaa. 2,
ta ku xigta ee saddexaad 3 ta ku xigta ee afraad ta ku xigta afraad baan gelaynaa soo jiidaynaa 4 sidaa waxaan ka imanay 4 ayaan kasoo tirinay ta ku xigta ayaan gelaynaa oo lambar 5 ah 5 kadib waxaan kacaynaa tan waxaan ka xisaabinaynaa inay 1 tahay 1 cafwan 2 3 4 5 isla meeshii aan kasoo kacnay isla stitchkii yani ayaan gelaynaa waxaan ku xiraynaa gursada siibata haddana waxaan tirinaynaa 1 sidaa waxaan ku sameynay 1 2 tan tii saddexaad bay noqonaysaa marka spacekani wuu ka yaraanayaa because haddii aan tirino waxay noqonaysaa 1 2 3 4 5 afar keliyaatay noqonaysa annaguna waxaan doonaynaa spacekaas inay 2 xabo nooga soo baxaan marka waan ka yaraynaynaa halkan waxaan u dhaxaysiinaynaa 4 halkan oo kale waxaan u dhaxaysiinaynaa 3 si aan u helno 2 gees oo sidan oo kale oo inagu noqoto 5 si ay noo siiso hadhow toole ubax 5 geesood haddii kale waxay naga noqonaysaa 4 geesood mana qurux badna markaas halka midii shanaad baan marayno waxaan sameynaynaa 2 3 4 5 marka ta ku xigtaan gelaynaa haddana waxaan ka wadaa isla iyadii baan gelaynaa waxaan ku xiraynaa gursada siibata marka waxaan doonaynaa 2 gees iminka 3 gees baan sameeyey oo kasoo taagan wareegayga waxaan doonayaa mid kalena halkan ku sameeyo midna halkan ku sameeyo waayo waxay noqonaysaa centerkii ay ka kacayeen ubaxyadu marka halkan waxaan u dhaxaysiinaya 1 2 3 4 shanaad baan kacayay waxaan sameynayaa waxaan u dhaxaysiinaya 1 2 3 ta afraadna waan kacayaa marka kor waxaan u kacayaa 5 silsiladood baan kor u kacayaa isla meeshii baan haddana ku xidhayaa haddana 3 baan ka tegayaa ta afraad baan haddana 5 kor u kacayaa kadibna meesheedii baan ku xidhayaa bes saasaan ku dhameynayaa kadibna haddii soo noqdo markaan dhameynay aan xidhayntii u dambeysay saasay wada ekaanaysaa waxay noqonaysaa wareeg dabcan halkii uu ka gelayay shamacu waa halkaa waxay yeelanaysaa 1 2 3 4 5 shanta goobo yaryar marka shantaasaan ku sameynaynaa ubaxa aan idin tuso markaasaan u sameynayno markaan ku xidhay silsiladii u dambeysay buuxbuuxinta halkaas waxa u dhaxaysa hal silsilad sida u jeedaanba halkaas silsilad ayaan halka hoose ka gelayaa kadib waxaan ku shaqeynayaa buuxbuuxin kadib waxaan sameynayaa goobadaydan ayaan saasoo kale u kala qabanayaa si aan u helo yacni gudaheeda duloolka ku yaala hal mar baan irbadda kusoo wareejinayaa dunta kadib waxaan dhex gelayaa goobadan ayaan dhex gelayaa aan markii hore sameeyey waan soo jiidayaa xadhiga waxaan sameynayaa 1 2 yacni waxaan ku sameynayaa hal tiir oo wareeg leh haddana dib baan usoo jiidayaa dunta waa ka wareegi waan kala hayaa yacni gacantaydan ku hayaa isagan gelayaa dib baan usoo jiidayaa dunta waxaan kasoo baxayaa 2 haddana waxaan kasoo baxayaa labada kale saas waxaan ku sameeyey tiirkii labaad dib baan haddana usoo jiidayaa gudihiisa waxaan ku sameynayaa 5 kan waa kii saddexaad 5 tiir oo hal wareeg leh waa kii afraad waa kii shanaad cafwan ka shanaad baan ku celinayaa waa kii shanaad sidaa waxaan sameeyey 5 tiir oo hal wareeg leh ayaan waxaan ku sameeyey goobadii tan oo kale ahayd ayaan ku dhex sameeyey marka waxaan sameynayaa kor baan u kacayaa 1 2 3 4 silsiladood ayaan kor u kacayaa silsiladii u horeysay ee aan kor u kacay oo taa ah ayaan dhexda ka gelayaa labada dacal markaan dhex galo duntaan soo jiidayaa waxaan ku xidhayaa gursada siibata si ay noogu sameyso madaxan yar ee buuran madaxa saasoo kale ee buuran ubaxa caleentiisa marka haddana waxaan sameynaynaa isla meeshii markaan kasoo saarnay yani si gursada siibataan nagu saas ayma waxaan baan ku sameynaynaa wareeg ama duntaan hal mar kusoo laabaynaa marka waxaan sameynaynaa hal mar baan dunta ku laabaynaa wareegan ku shaqeynaynay dacalkiisii labaad waa kaa qaybtaas maan kaga shaqeynay isla isagii baan haddana dib u gelaynaa waxaan ku shaqeynaynaa 5tii aan markii hore shaqeynay 5teedii 2 jeer 1
marbaad dunta kusoo laabaysa oo dhex gelaysa haddana dunta soo jiidaysaa 3 wareeg marka kuu samaysmaan labaad ka saaraysaa haddana labada kalaad ka saaraysaa 2 saasaad ku wadaysaa 3 4 iyo 5 kadib waxaan sameynaynaa 1 2 3 waxaan tirinaynaa yacni waxaan tirinaynaa silsilada ku xigta 1 2 ta saddexaad baan ku xidhaynaa oo ah taas halka hoosaan ka gelaynaa labada dacal duntaan soo jiidayna waxaan ku xidhaynaa gursada siibata saas waxaa kuu samaysmaya caleentii u horeysay ee ubaxa si aad jeedin sidii baan kusoo celinaynaa hal mar baan ku wareejinayaa waxaan ku shaqeynayaa 5 tiir oo hal wareeg leh kadib waxaan kor u kacaynaa 4 stitch 1 2 3 4 stitchka u horeeya ama silsilada u horeysay baan dhexda ka gelaynaa duntaan soo jiidaynaa duntaan soo jiidayna waxaan ku xidhaynaa gursada siibata haddana 5 kalaan sameynaynaa 5 tiir kadib waxaan eegaynaa 1 2 taa dhexe ayaan ku xidhaynaa oo 3 ah anagoo soo jiidayna oo gursada siibata ku xidhaynaa saasaan ku wadaynaa waan ku sameynaynaa yani 3 caleemood ee hadhay anagoo markastaba 5 tiir oo hal wareeg leh dhinacan ka sameynayna kadib kor baan u kacaynaa 4 kadibna dhinacan kalena waxaan ku sameynaynaa haddana 5 tiir oo hal wareeg leh marka aan dhameeyo kadibna aan isku soo noqono markaan dhameynay shaqadii saasay u ekaatay gursada u dambeysay markaad gaadhid waxaad ku xidhaysaa dabcan gursada siibata kadib xadhiga waad iska jaraysaa saasaad usoo saaraysaa kadib waad iska guntaysaa halka dambe ayaanad ku qarinaysaa shaqadaada videogii saasaan kusoo dhameynay insha allahu tacaala final productigiina saas u eegyahay sharaxaad yaro fudud weeyaan waxaan rajeynaya insha allahu tacaala saan u sharxaynay in aad u fududayd qof kastaaba sameyn karo xiiseynaya inta videoga kale insha allahu tacaala soo gelinayo waxaan idiin rajeynayaa khayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh